يهود متقنا يهود أيها كفي عن شريف حسن إلهي لما عابودي كرو شريف حسن يا أتباع دي أنت جوجان كونفورت الصومالي شباب أرجع حسن نك عصيب الشريف حسن شيخ آدم هذا أقطع هذيك كلام ولا كلوا ليا شريف حسن شن فرودي على إن لا إسقاط قبته يعني دوا كلام عليه إثيوبيا ولي اسمه دفاعي كرو هدي أبها إسكفرتو ما هذا أضوفره هدي أبها إسكفرتو بسم الله وكفى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دادوينها شرفت له waxay anaga daawanaysiin warbaahinta Southern Media Corporation sida u jeedin maanta waxa ay halkaan diirada lagu saarayaa maanta waxa ay nolol joogo aqoonyahan ustaad Adam Ingiriis sida u jeedin maanta asiga ayaa wareysi kooban ka qaadanaya ustaad ku soo dhaw barnaamijka بسم الله وكفى marka ugu horeysa xasano waad mahadsantahay adiga iyo ma arkayste cameraman-kaagi iyo studio wareega ee Southern Media Corporation aad ayaan ugu faraxsanahay inaan marti ku noqdo studio-ha koonfurta Soomaaliya ustaadi maanta waxa aan ka rabnaa inaan barnaamij aan ka wareysano sida koonfurta Soomaaliya waa sida hadda labadan barnaamijka oo ogtahay sida aan la socono Shariif Xasan Sheekh Aadan in uu macnaha dadkii oo la iska xiraayo macnaha wax dan iyo wax kale aysan ku jirin marka maxaa ka leedahay barnaamijkaas labadan bari magaalada dhan qabsaday adduunka dhan qabsaday ilaa haddana wax ka hadla aan laanahay barnaamijkaas horta afkii baa joogda gabay xasanos sida aad ka warqabto bali aadamku wuxuu leeyahay dulqaad ilaa ay xad u dul qaadan karo hadda lama joogo waqtigii la aamusi lahaa qof walba oo koonfurta u dhashay waxaa la gudboon in uu hadalkiisaasi bannaanka uu soo dhigo uu kaga soo horjeedo maamulkan gurcan ee Shariif Xasan Sheekh Aadan طبعاً مامولك كونفورت الصومالية دولة نمذا وحلا يرادو كما سهور جدنا ما نديدنين لكن شريفك وكبد بتشي دول قادنا متشرو سيدا أتكور قبط السياسيين ودا شيء كونفورت الصومالية يدد شعبه يحل بانو كجيران أيا لو عجد جوجلينية إسلام مركزنا حبسي قبل الله سيدا هذا نور معلن أو بكرة وكمد إسقوا معركة حسبي إسكام مدح بنانو دل يراه جاميناي وحكاسنا وح لا دول قادن كرو ما أهن لكن واحد وقعتها Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii aabihii qooraha ka jijiday hooyadiisu ku dheereeyay macnaheedu waxay tahay Shariif Xasan waxay dani ugu jirtay inuu iska aamusnaado dadku aysan iska hadlaan oo waxba uusan ka soo qaadin laakiin mar haddii dadkii ma arkaysa isaga fikirkiisa ka soo horjeeday dimuqraadiyadda sida ay ogoshahay xorriyatul qowlka wariyanimadii ama saxaafadii uu caburinay ay timaado waxa dhalanaya wax la yiraahdo كعضون شعب أيه كل لنا يا أرنتاسي وأنا تنهض الدعلة الدون كمال والبيك تاجن تاي. وسيدا وجدنا شريف كأيان تان حال ديس أدي يو كعسنت هاي دت كير إنه حرية دت كيف أو ما إنه مجال أو ورشتين أو سهل جميل مجال أيو مالا يعني وحرية من مالين عد مركز شريف كسياسة دي سمحيه كسعة يعني هي كنا من محيان محود دمع سنة شريف ك أو دت كي السكحرة منها أو واحد أو دت كينا أنت أساسا وحسوه هاي سد أحسن ومعمول كهاي شريف إلا هذا دت كي زوح مو قبلين سيدا وأقنا شباب هو صح كما قبلين مركز شريف ك سيدا يلا سيسب شريف كأرنتيسا قال يا حاسكو قادية أما جاري كل قدون يابا Soomaaliya geeri ma dheer bay maanta taagantaa Shariif Xasan in la iska dulqaado isaga iyo kalaabta ama atbaacdiisaasi afka uu guridayo balaqa sanbabka in la iska dulqaado la iska qabto maanta way akoon tahay wayna la gudboon tahay dadka koonfurta Soomaaliya sababta waxay tahay Shariif imaanshihiisa markuu imaanayay xaraan buu ku yimaaday Shariif wuxuu ahaa ninkii shalay ninka maanta wadaniga iska dhigaya ee koonfurta Soomaaliya in uu ma arkayso wax u qabanaa iska dhigaya كو Soomaaliya oo dhan ninka dhibaatada iyo balaayada galiyay ayuu ahaa dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweyne ka ahaa Shariif waa ninka diidanaa in Baydhabo iyo Jowhar caasimad inay u noqoto dhaqaalaha Baydhabo iyo Jowhar macnaheedu ama Baydhabo ay ka faa'iideysato dhaqaalaha dawladda ninka diidan ayuu ahaa ninka Muqdisho ka dagay hogaamiye kooxeedyadii dawladda Cabdullaahi Yuusuf ka soo horjeeday tagay u tagay yiri isbaarooyinka xamar hal qaado dawladda ayaan xamar keenaya oo caalamka xataa arintaas uu ma arkaysa cadaadiska ku saaraya dawladda Soomaaliya Shariif Xasan ayuu ahaa Shariif Xasan isagoo sheeganaya in wadamada safafka hore ama sida Ethiopia iyo Kenya ciidamadooda Soomaaliya aan soo galin aan diidanahay shacabka Soomaaliyeed uu sheegayay gudoomiye baarlamaan isagoo ahaa waa ninka Baydhabo marka dawladda ay timaaday markii kadibna intuu u codeeyay Ethiopia inay dalka Soomaaliya soo gasho haddana Eritrea u gudbay way oo midowgii maxaakiimta oo la og yahay Soomaaliya dhibaatadii ka geysteen ninka
taageerayay ayuu ahaa ninka maxaakiimta ma arkayse shabaab iyo argagixisan ninka aas-aasayba shariif xasan sheekh aadan waa haddaa ogta haddii kaleba marka shariif xasan sheekh aadan in badan ayaa loo dulqaatay waa laga aamusnaa maamulka koonfurta soomaaliya 6 gobol iyo barka ninka ku soo duulay kow shalay isaga ayuu ahaa isagoo ku soo duulay oo uu burburiyey maamulkii koonfurta soomaaliya derbijiif uu ka soo urursaday muqdisho oo shaatiyada ay ku caddaadeen oo baahan intuu keenay meelo ku shiriyey ninka 6 gobol burburiya ayuu ahaa 3 gobol ninka qaatay 3 gobol dhumiyey ninka macnihii koonfur galbeed kala gooyay ayuu ahaa laba daraale maamulkii 3 gobol ee dadka macnihii Itoobiya uu ku jujuubay ee ma arkaysa xoogga uu ku qabsaday haddana cadaaladii uu sheegay dastuurkii uu isagu gacantiisa ku qortay ninka fulin waayo sida ogtahay maamul koonfur galbeed ilaa hadda male madaxweyne ku xigeen male wuxuu yiri muddo 6 bilood gudahoodan kaga dhawaaqaya intaas waxa ku sii dheer 9 wasiir intay ka dhacday reer koonfurku waxay degan yihiin gobolada Soomaaliya oo dhan ay degan yihiin Somaliland ay degan yihiin Puntland ay degan yihiin gobolada dhexe ama galmudug ay degan yihiin ma haysaa meel hal wasiir ama hal xildhibaan xataa lagaga siiyey ma jiro laakiin taa cagsigeeda koonfur Soomaaliya 9 wasiir ayuu ka siiyey shariif xasan sheekh aadan dad aan deegaanka u dhalanin isagoo 3 gobolna soo kala gooyay shariif xaguu dadka u wadaa hadda wuxuu ku darsaday ninbaa wuxuu yiri duqdi way ka dartay dad cuno way ku darsatay ma fahmaysaa shariifkii oo shariif ahaa oo dadka shalombayn jiray oo sharra loogu yeeray maanta wuxuu bilaabay haddana in shacabkii Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya hadalka uu diido sida aad ka warqabto 6 gobol markay jirtay oo madooba nuuna uu madaxweyne ka ahaa dadka baydhabo meel walba ayay ku mudaharaadayeen iyadoo shabaab aan laga cabsanaynin qof laga cabsanaya aan jirin madaxdu ay socoto wasiiradu ay socdaan laakiin saa ka warqabtay shariif aeroboorka baydhabo 10 kilomitir aeroboorka baydhabo ayuu ku leeyahay guri meel 5 kilomitir u jirta qof Soomaaliya uusan soo dhex mari karin Etoobiyana meesha ku waardiyeeya taangiya lagu wada laga sii wada ma fahmaysaa shariif maba ahanba kii warkan lagu aamini karo ama loo sugi karo ma ahan ataxiyaadka ayuu ku dhuusay wax uu qaban waayay waana laga soo horjeeda dal iyo dibad baad aragtaa qof ogolaana jirin dawadana waxay tahay shariif iyo kilaabta la socota in 5 farood iyo calaacal la isaga qabto xasanos shariifka macnaha waa ognahay inuu koonfur galbeed uu matalo laakiin dad nin madaxiisa oo magaaladii matalo ilaa hadda ma uusan tagin baraawo ma tagin markoo kale ma tagin bakool iyo baay ma tagin marka sidaan ku dhihi karnaa shariifka macnaha dadkiisa oo matala madaxweyne waaye waa ogtahay maamul goboleedka u dambeeyay Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble wuxuu hayay wax sanad dhameen waxaa la arkay inuu wax qabanaynin waa la bedelay marka reer koonfur galbeed dadkii wax garadka ahay aqooyahanka ahay baarlamaanka ku jireen ma isleenahay dadkii waa la gatay talama hayaan haddana waxa ayaa nagu maqaalay dadkii shariifka macnaha u sacabtumayeen inay maanta mucaarad ay ku noqdeen maanta ayaantan media waxa qabsaday dadkii shalay mucaarad oo shariifku gacantuma ayaa maanta mucaarad marka maxaa ayaa ka leedahay midaas ustaad Israa'iil yuhuud ma taqaana yuhuud ayaa ka fiican shariif xasan ilaahay lama caabudi karo shariif xasan iyo atbaacdiisa intay joogaan koonfurta Soomaaliya sababtu waxay tahay ilaahay markuu abuurayay bani aadamka intuusan abuurin ka hor dhulku abuuray dhulka muxuu abuuray dhul haddaan jirin xagee lagu caabudaya shariif xasan dhulka ayuu dhuminaya shariif xasan haddaan meesha laga qaadin xataa lama caabudi karo ilaahay waayo dhul haddaadan lahayn ilaahay maba caabudi kartid taa macneedu waxay tahay shariif xasan heshiisyadii uu xasan sheekh dawladdiisii uu la soo galay marka 6 gobol la burburinayo aanu ka aamusnayn ayaanu wax ka ognahay waxna ka sheegaynaa maanta shariifka heshiiska ugu dambeeya ee qofna macnaheedu inta badan dadka aan wada ogeyn uu la soo galay xasan sheekh iyo ma arkayse xisbigiisa waxa uu ahaa in dhulka koonfur galbeed ee Soomaaliya marka ugu horeysa laba loo kala gooyo 3 gobol iyo 3 gobol 3 gobolna gobolka ugu nacfiga badan Soomaaliya waa shabeellada hoose in 8 degmo ay ka kooban tahay 4 degmo ee dhanka Muqdisho xigta in shariif xasan sheekh aadan uu u gooyo dadka hadda haysta oo aan wada ognahay horta heshiiska sidaas uu ahaa gobolka bakoolna sida aad ka warqabto 3 macnii
tuulo ama degmo iyo tuulooyin ayaa ma arkaysa u hibeeyey dadka ma arkaysa haysta hadda oo Itoobiya ku abtirsada taa macnaheedu waxay tahay shariifka heshiiska koonfur galbeed uu la soo galayba waxa weeye 2 gobol oo kaamil ah ma ahan 3 gobol dadka in la sira maahan degmada Afgooye degmada Marka iyo laba degmo kale oo macnihii dhanka Muqdisho xiga kama tirsana koonfurta Soomaaliya heshiiska dawladda koonfurta Soomaaliya Shariif Xasan hadda uu hogaaminayo uu ku fadhiyo waa taa macnaheedu marka waxay tahay dadka deegaanka hadda dhaqaaqay hadda war waxaana soo gaaray qoryoolay in war fiican uu ka soo yeeray dadkii deegaanka intay is abaabuleen hubkoodu ay qaateen ay la dagaalameen qoryoolay ay la safteen ciidamada amisom ay la saaxiibeen isla markaasna iska dulqaadeen mooryaantii ku soo duushay ee isbaarada dhiganaysay beeraha xoogga ku haysatay ay iska wareejiyeen macnaheedu waxay tahay shariif in wax laga suga maahan maanta haddaad ka tagto Muqdisho ama aad ka tagto siinka dheer meesha astaanta u ah koonfurta Soomaaliya dawladdeeda oo aad u socoto Walaweyn 100 isbaaro ayaa taala 100kaasi isbaaro uma taalo qof dad deegaanka u dhashay waxay u taalaa dad aan deegaanka u dhalan bay u taalaa qof aan deegaanka u dhalan oo biyaha ka iibinayay oo ma arkaysa dadkaaga dilayay oo ku kufsanayna kuma naxayo waxa lagu sameeyo dadka koonfurta Soomaaliya war Afghanistan oo quwadaha adduunka ay ku duuleen kama dhicin shabeellada hoose tan lagu sameeyay laguna hayo Shariif Xasan oo ku fiirsanayo raali kaga yahay Afghanistan kama dhicin Iraq kama dhicin Liibiya kama dhicin maxaa yeelay dadkaasi marxuum khaldan gantaal khaldamay iyagoo aroos macnii dhiganay inta lagu dhufto baa la leeyahay si qaladan u duqeynay mooyaane qof guuraya ama qof inta lagu soo guuray gurigiisii qabiilo dhan intay ku soo guureen beertiisa ay gurigiisa laga qabsanayo Afghanistan kama jirto Iraq kama jirto Liibiya kama jirto shabeellada hoose bas ay ka jirtaa marka war iyo dhamaantii wuxuu yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waa cadowga koobaad ee Soomaaliya dadka koonfurta Soomaaliya waxaan u sheegaynaa kala saara dawladnimada iyo shakhsiga kala saara dawladnimadu waa waxa dadkoo dhan ay wada leeyihiin war meel aan dugsanno ama ay dugsadaan dadkan ma lahan aan dhulkaasi ahayn ilaahay dhulku abuuray marka hore intuusan bani aadan abuurin waa in dhulka nimankan qoliyaan hadda waan dagaalamayna ay leeyihiin oo jihadayna ma cirkay ka jihadayaan haddaan dhul jirin dhul waa inuu jira haddii dhul aadan lahayna ilaahay ma caabudi kartid أستاذي هذا دي أنا معناها شريف كحيل كالغاضو أو مانتا شريف حسن شيخ آدن أو مانتا له شريف حسن شيخ آدن والرذي معناها كلسوننا برلمان كان لابتين مركب محا يا وهيسين إن معناها أو مدح كنا غضو هدي له مانتا عوض شريف حسن شيخ آدن مانتا وحكي قدام بين شعب بواي محا يا ودن دتك كونفور قلب سوماليا محا وهيسين وأنا يا معناها أصل شجرة دنا يا لذا سيد مدح تني مدو كله dadka ku doodaya Shariif Xasan hadii meesha laga tuuro nin ka roon ama qof ka roon oo bedelaya miyaad haysaan marka qofka dadka ku doodaya macnaheedu waxay tahay hooyada hadii aabaha ay iska furto ma ahan haduu furo haday aabaha iska furto oo adeerka ama nin kale ay keensato ogow ninka ay keensatay ee dambe ayaa ka fiican aabaha waayo haduusan ka fiicnayn hooyada maba aysan keensateen macnaheedu waxay tahay war ma aragtaa maanta dawladda Shariif Xasan uu hogaaminayo ana madaxweyne ka ah uu leeyahay ummadan boqolkiiba 50 Soomaalida population-ka ama dadweynaha way ka badan tahay ama way u dhigantaa aaway aqoonyahan bay leedahay aaway garaad bay leedahay aaway saraakiil bay leedahay aaway waxgarad bay leedahay war ma haysaa dawladdiisii dadkii aqoonta lahaa cuqallada akiyaaska ahaa ee jaamacadaha ka soo baxay ee ma arkayse aragtida dheera oo ka tirsan maad haysa adiga waa maya ma haysid dhammaantood dal iyo dibad ayay dhooban yihiin Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu ku xiray darbigii Berlin uu ku xiray airportku dhufays ka galay 5 kilomitir xataa salaada ciidda markuu tukanayo Ethiopian ayaa dadka soo baaraya Soomaali xataa iskuma aaminayo qofka noocaas uu xukumaa aniga qofka noocaas uu xukumi kara shacabka qofka noocaas uu u matali kara masiirka boqolkiiba 50 Soomaali 8 milyan ah suu xukumi kara waa wax loo yeelay waxa la yiri dameer isku halayn ayuu maqaayad u galaa Shariif Xasan waa loo yeelay laakiin waxaan ku hayaa Ethiopian waligiis ma difaaci karo
اوكي استاذي waxaa ka leedahay dadka shacabka koonfur galbeed ka soo jeedo iyo aqoon-yahanada ka soo jeedaan oo koonfur galbeed oo la xirxiray sida loo dhaqmayo marka hadda dadka xiran oo xabsiga ku jira dadka aqoon-yahanada ka soo jeeda iyo shacabka koonfur galbeed maxay ugu baaqaysaa maxay leedahay fariin maxaa halkan ugu diraysaa maanta adoo fursadan ka faa'iideysanaysa waxaan leeyahay gallad la isagama quusan iyo gargaar eebba keenaayo gowraca gudaheeda inkastoo Soomaali gacan siin rabto guudka ceebtii naga gaadho iyo gocoshadii gaamurtay giriftii igu gaxday iyo murugadii gaarka ahayd haddiina la gumeeyey ee garnaqsi naloo diiday garashadeeda gaaban goor iyo waqti baa gurmano waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn macnaheedu waxay tahay waa gadisley Soomaalidana waxay tiraahdaa reer koonfurku gadisley gaalana ma ahan islaamna ma ahan kuuna niximayso Shariif Xasan dadka ayuu iska shalombaystaa shilimaadku ka gurtaa meesha uu ku shubayna lama yaqaano waxaan leeyahay shacabka koonfurta Soomaaliya war waad dhimateene la idin iibsaday la idin dilooday dhulkiini la dhacay dadkiini la boobay hantidooda haweenkiini la kufsaday maalin iyo habeenna si arxan dara ah beeraha iyo guryaha iyo xoolahooda loogu war Soomaaliya dad biyaha ay leeyihiin laga iibiyay waxa laga helaa reer koonfur laga helaa war waxaan leeyahay istaaga dhab isugu tiirsada oo gacmaha intaad isqabsataan gunnimo geeri baa karoon baa leeyahay si fiican waa ninka wareysanayna waa ustaad aadan markaas wareysi halkaas ayaan ku soo koobaynaa ustaad maxaa kale ayaa leedahay dadka u jeedinaysaa من سيد waxaa ognahay hadda aqoon-yahanada waxa aan ka rabnaa koonfur galbeed garoonkii Baladoog lama hayno ilaa hadda garoonkii Braaw ma hayno magaalada madaxdii ku meel gaar hadda waxa ay beedhawaaya ilaa hadda dawladii Braaw ma aysan guurin marka xagee aadeen degadii Braaw xagee aaday degadii marka xagee aaday marka dhaqaalihii koonfurta Soomaaliya xaguu aaday ayaan dhihi karnaa ilaa hadda macnaha kama hayno dhaqaalo وأغنى كرونك بردوك المالول بريكنا أيام إنها استقدال دلنا قف كونفور قلبت مش وحكة معهن مركز هالكاس ودن دقالي حقوق هذي شريف كم إيه كنا حقوقي دقالاس مصور كم هاي أيام هذا أستاذي حشا نينك إسكالي أدمودو جيلالك هدي وصينتك كغفر ديو ما كعيسو سيدي دابا حسنوس شيلين كيسي قبيل أيو كبحي إيقات دادكي أيو قبيل أشرينايا xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ee xasaanada qaaday ee dadkan betalaya marka ay ka hadlaan dhibaatada uu ku hayo Shariif Xasan shacabka Soomaaliyeed ee koonfurta Soomaaliya degan wuxuu la hadlayaa qofkaasi qabiilkiisu la hadlayo wuxuu leeyahay waa waxaanu ka gudubnay ma koonfurta Soomaaliya xisbi bay maraysaa ma joogno xilli qabiil ma joogno wuxuu leeyahay malaaqebelow ka hadal ninkaasi macnihiisu qabiilkaaga waa u hanjab war waxaan uga digayaa shakhsiyaad fiican ku jira runtii oo Shariifku duufsaday koonfurta Soomaaliya ay ka mid ka yihiin sida wasiirka amniga oo kale dad wanaagsan baa ku jira dadkaasi iyaga waxaan kula dardaarmayaa ama aan u sheegayaa walaalayaal lama joogo xilligii la isdili lahaa oo macnihi Shariif Xasan madaxiisii ummadda isu baabi'in lahay waa nin dilaal ah broker ah wuxuu yahay anagu waanu ogeyn waanu ka aamusnayn dadkan islaahin horta ha ka dhargaano hadda ma fahmaysaa waxaan leeyahay dadka noocaasi marka ugu horeysa Shariifku wuxuu yahayna waa ogtiin xitaa nin kasto oo hadda macnaheedu jaga uu u dhiibay dhalinyarada jagada haysa ee koonfurta Soomaaliya nin kasta marka uu hawshiisa si fiican u qaban maago hoos u dhigaya amsu leeyahay macnaheedu waa sheekadii Maxamed Siyaad Barre oo kale Siyaad Barre janan uu ahaa Allah u naxariisto dadka qaarna Ilaahay u naxariisto ma dhahan laakiin ما يدواي الله ونحرستان لنا نين جننا دجالذي إثيوبيا الصومالية وحلا شيء مركب وصبح عيدا كيسي قلت هذا اللودي بتلين كدجال علوس قالوا ودبوين وجيست الدولة ده معني ولا دجال لما إثيوبيا مركز عدو واحد صوماليا وعسل جري أما ساندو كريبان جري أما ما أركز معني صحيدو كيرين جري السجود ديدن نكاسي ما يعيسينه ككرمرو macnaheedu waxay tahay Shariif Xasan dadka uu maanta hogaaminayo oo meesha ku urursaday aan dhihi karaa nafsadooda qof xilkiisa toos u gudan kara male dad aqoon way ku jiraan dad wax fahmaan way ku jiraan dad dhiig leh ku jira dad u damqanaya dadkooda lagu leynayo bakool shabeellada hoose waxa ka dhacaya macnaheedu diidana ku jira oo dhiiga gubanayo laakiin ma hadli karaan ninkan waaba heshiisu ku soo galay dhulkan inuu bixiyo uu dhiibo una dhiibay lacagtana uu hormarsaday
waxaana taasi daliil u ah oo dadka koonfurta siyaasiyiintii markaa fadhiya ADC shirka markuu jira Shariif ka uu imaanayay 10 milyan inuu boorso ku sitay uu yiri 10 milyan baa inoo soo qaaday maamul baan inoogu dhisaya hadda ma fahmaysaa saddex gobol aan qaadano war dhulkan dhul mar hore la gata weeye dadkan waa dad mar hore la dhoofshay hadda ma fahmaysaa waxba yeelan isku daalin caanadaa tadabadooda la yiri hadda maxaan qaban karnaa hadda waxaan qaban karnaa waxa weeye sadar cad su'aal ka dhan Shariif Xasan Sheekh Aadan inuusan qabiil ahayn inuusan ma arkaysa tol ahayn inuusan macni siyaasi ku matali kara uusan ahayn in haddii macni meesha uu ka baxa aan loo dhurtinaynin in wuxuu yahay la ogaaday adeero hadda macni foosta ma dharagto foosta gadaal ka doleesha biyo macni laga buuxin karo Shariif waxaad qaadatay waa qaadatay let by Guinness be by Guinness walaalow marka kan ummadda dhibka ka dhaaf iska daa dadkan way rafaadeen 1947 ilaa iyo taariya maanta ayay federaal u ordayeen dadka koonfurta Soomaaliya dadka soo hindisay ahaayeen hadda ma fahmaysaa ninka laba jeer fashiliyay Shariif Xasan waa koonfurta Soomaaliya riyadii ay ku riyoonaysay in la hirgeliyo macnaheedu maamulka federaalka ilaahay ha dhaafee nin aad u caqli badan ka hadlay ka hor Shariif Xasan intuusan lixda gobol uusan kala burburin markuu doonayay professor Maxamed Xaaji Mukhtaar ayaa la yiraahdaa oo jaamacadaha macnaheedu ugu sareeya caalamka hormoodka jaamacadda Savannah State ee ku taala Mareykanka wuxuu yiri maamul goboleed hadda uma baahnin uu yiri professor Mukhtaar wuxuu ahaa nin aad ugu halgama maamul goboleedku ahaa markii hore laakiin wuxuu arkay Shariifkan heshiisyada uu la soo galay qoliyahan kale ee koonfurta inay baabi'iso rabta iyo waxa macnaheedu laga dheefi karaayo maamul goboleed saddex gobol xataa ka liito oo laba gobol ah marka hadda iyo danta waxay ku jirtaa Shariif Xasan Sheekh Aadan hadduu xishoon waayay oo macnaheedu shacabkii maantay xuriyatul qowlka meesha ugu dambaysa war maanta koonfurta Soomaaliya wariye hadli kara male runta markaan ku sheego wariyaasha marka lixda gobol la aasaasay aad ogeyd Xasanos adigu marqaati aad ka tahay oo burqanaysay siday rabaan u hadlay maanta ma hadli karaan qofkii hadla godka yaqaan qofkii hadla waaba la xiri qofkii hadla waa la dili qofkii hadla waa la jirdilaya imisa wariyaal ba habeen iyo maalin la soo xiriira oo hadlila oo Shariif Xasan Sheekh Aadan amarkiisi loogu caga juglaynaya inaysan war gudbin karin war qarnigee la jooga xagee la jooga maxaynu nahay dib aan isu weydiino annagu waxaan nahay dadka ugu xurnimada badan lagana soo gaaray xuriyadda Soomaaliya oo dhan aan nahay haddaan nahay dadka ku abtirsada koonfurta Soomaaliya yes Soomaali baan ahay waa ku faanaya laakiin geel waa uu wada jirtaa una kala jirtaa maxaad asaagaaga wax la qaybsataa haddii gurigaagaba uu wasaq yahay uusan hagaagsanayn macnaheedu waxay tahay Shariifow hadda wuxuu leeyahay deeq waxbarasho markii lagu kacay baryahan deeq waxbarasho ayaan ma arkayse qaybin dad baan shaqaalayn 150 war waxaasi waa faataadhug weeye huuhaa weeye waa beentiisii hadda ma fahmaysaa waxaa la yidhi been hal lug bay leedahay hadda ma fahmaysaa haddii mar la qabtana way u dhammaatay hadduu run sheegaayo Shariif Xasan 3 sano uu meesha joogaa waraaqihiisii xaashiyaashiisa waxaa ku qoran madaxweyne ku xigeen in dalka uu xaq u leeyahay in ma arkaysa baarlamaanka uu ka yar yahay 130 hadda uu yahay 140 iyo ka badhir hadda uu yahay waxa meesha ku qoran wasiir dawlad kuma qorna waxa soo dhan isaga jaabkiisa samaystay wuxuuna u samaystay in uu ku shalambaysto dadka cashuurta la qaado kaasadiisay toos ugu dhacdaa wuxuu rabo ka samaystaa deeqaha waxbarashada waxa la siiyaa oo laga iibiyaa dad aan reer koonfur ahayn deyn baa lagu kala qaataa waan ogna xasano waxyaabo badan oo waxaan ka sii xun oo macnaheedu saxar oo xaaraan ognahay heshiisyada Shariif Xasan uu la soo galay ay ka midka yihiin qoliyaha kale ee u cadowga koonfurta Soomaaliya Shariif isa sixi maayo xishoonna maayo waa gadislay waa ganacsade sideedaba qofka shaqada uu yaqaan buu ku shaqaystaa ninka siyaasi maahan ninkan waa ganacsade ukun iyo moos iyo sida loo iibiyo yaqaana dadkana sidii u malaya marka waxa weeye doqontu ya haddii ay ku garan weydo waa la kululeeyaa Shariif Xasan 5 farood iyo calacal in la isaga qabta mooyaane
dawo kale male xasan aad iyo aad ayuu mahadsan tahay waa ninka hadda wareysanayna ustaad aadam marka dhammaan waxay idin sheegayaan dadka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka soo jeedaan cidna idinma maqno calna idinma qodno fursadii u dambeysay maanta ayaa haysatiin kacdoonka sameeysiin waa hor u sii socda idin leeyahay fursadda maanta ayaa haysatiin maanta kadib fursaddan ma imaanayso marka waxaa idin leeyahay shacab xildhibaan aqooyahan siyaasi suxufi dhammaantiin waxaa idin leeyahay hala kaco midnimada loo dagaalo waxay nagala socotay si toos ah warbaahinta koonfurta Soomaaliya ayaa nagala socotay si toos ah isbuucan soo socdan waxay soo gudbin doonaa si talatal ah barnaamij ku saabsan koonfur galbeed Soomaaliya sida xornimo u qaadan lahayn sidaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh